kulanti wacan wanaagsan soo dhawaada walaalaha ku xiran channelka wax ogaal maanta saaxiibayaal waxaan sharixi doonaa filim aad iyo aad u xiiso badan oo lagu magacaabo Operation Mekong waa kanaan filimkii daawasho wacan saaxiibayaal filimku halkan ayuu ka bilaabanayaa magaaladan waa magaalo gangistarada iyo aad ugu bateen sidoo kale maqaadiraadkan lagu kala gudbiyay yacni hoyga maqaadiraadka ay noqotay markaan ciidamada booliisku waxay nadiifinayaan magaaladii maqaadiraad ayaa lagu dhex qabanayaa markaan sidoo kale niman burcad ayaa soo galay magaaladii balse ciidamadii booliiska ayaa ka hortegaya gacantana ayay ku dhigayaan markii ciidamadii hawshooda gutaan waxaa u sacbinaya ciidamadii dhammaantood iyo kuwii ka sarsareeyay markaana waxaa saxaafad u qabanaya taliyahoodii wuxuuna ku amrayaa ciidamada dhammaantood in dalka ay nadiifiyaan dalka horumarkiisana ay ka taliyaan balse arrintaas waxay u xilsaarayaan askari loo magacaabo yorga waa ninka hadda horteena ka muuqda isaga ayaa arrintan loo xilsaarayaa si uu dalka horumarkiisa uga tali lahaa nimanka muqaadaraadkoodana uu gacanta ugu soo dhigi lahaa sidoo kale markaan nimankii tuugada ahana arrintoodii ayay iska wataan markaan ninkan waa nin wuxuu la shaqeeyaa nimanka gangistarada ah markaan wuxuu rabaa inuu nin soo qabto oo sharci darraa waliba magaalada ay ugu dhex joogaan ninkan wuxuu saaran yahay tareenkan ninkii markuu ogaaday in tareenka loo soo galay wuxuu sameynaya in tareenka uu ka boodo kadibna uu waarigiisa u qaato yacni uu cararo balse ninkii intuu qabto ayuu guri gashanayaa guriga markuu geliyo kadib wuxuu sameynaya inuu inta xirxiro kadibna uu ninkii u ciqaabo si u sheego lacagtii meeshuu gooyey hawshiisana uga gudto askartiina markan waxay ka baarandegayaan si ay tuugada gacanta ugu soo dhigi lahaayeen tuugada waxay wataan ciyaal yaryara misna qoryo wato yacni hubeysan oo balwadana ayuha noocay ahaataba cabaaya kadibna markaasna ayagu isku daafacayaan markaan saxaafadeedkii ayaa u dhammaan rabaa askartii waxaa askarta lagu amrayaa in ay meel walba ay joogaan tuugada ay gacanta kusoo dhigaan magaaladan ay ku weeraraan marka askartii waxay ku talagalayaan inay baxaan dhammaantood askartiina waxay soo aadayaan dhankaasi meesha balwadda iyo tuugada ay joogeen dadkii dhammaa oo tuugada ahaa ayay gacanta kusoo dhigayaan meel walba ay joogaanna way u gelayaan xataa dadka shacabka qaar ayay soo qabanayaan markaasna arrintoodii bilow ayay u tahay ilaa hadda markaan arrintii waxaa ogaanaya yacni ka warqabaya nimankii tuugada ahaa oo keenta ku noolaa nin ayaa ka mid a ayaa warkii u geenaya balse nimankii markaan feejignaan ayay qabaan markaan diyaaradda waxaa soo raacaya yorga wuxuu u tegayaa saaxiibkiis tom markaana labadoodii diyaaradda ayay kasoo degeen weliba markaana waa halkan ayay ku kulmeen labadoodii markaan way baxayaan waxay goobayaan sidii nimankii mataqaana meeshii ka weerari lahayen ay ku heli lahaayeen waxay imaanayaan meel duura oo beeraleya kadib waxay imaanayaan guri weyn oo qasriya gurigan waxay kala kulmayaan nimankii tuugada ahaa sawiradoodii hore iyo meeshii kasoo iskumeen iyo inta nin ay yihiin halkana waxay ka qaadanayaan fikrad guud oo ay ku weerari karaan nimanka tuugada iyo halka ay joogaan kadibna markay ay ogaadaan meesha ay joogaan waa ay soo baxayaan waxay aadayaan dhankaasi meesha kalaabada iyo tuugada meesha laga helo markaan radraac ayay ugu jiraan weliba markaan bambooyin fara badan ayay rakabanayaan si ay tuugada u qaban lahaayeen markaana ay gacanta ugu dhigi lahaayeen weliba waxay adeegsanayaan qofkii ay ku dagaalami lahaayeen sidoo kale waxay adeegsanayaan mataqaana eeyaal fara badan si ay meesha ay joogaan ay nimanka gacanta usoo dhigaan mar alla markuu eeyga usoo sheego waxay arkayaan nin sawirada ay ku arkayaan nin ka mid a markaana waxa uu caddaanaysa in ninkii uu yahay kadibna ninkii ay isleeyiin soo qabta balse ninkii wuu arkaya wuu dareemaya isaga in la ceerinayo ninkii waa uu cararaya baabuurkiisa ayuu qaadanaya balse markaan gacanta ayaa lagu dhigayaa balse ninkii gaarigii kale ayaa ku cararaya markaana ciidamadii way ceersanayaan kadib saaxiibkiis gaarigiisa ayuu soo raaco qaybta gadaale oo gaari uu ka seexanaya balse nimanka ilaa hadda kama saaran xabado weyn ay ku furayaan balse markaan ayagoo Tommy gaariga saaran ayaa markaan waxa lagu soo tuurayaa qori weyn ah xabad gaariga futa lagu wiyaa ayagoo nimanka kale ay dhaawacayaan oo ma ka harayaan markaan labadoodii way guuldareysan yacni nimankii way ka farabaxseen labada marka ay soo laabanayaan hawlgalkoodii ay hore u wataan waxay soo aadayaan dhankaasi meesha magaalada dhexbartankeeda balse magaalada waxan way ka dhex goobayaan nin kale oo muqaadarad kala gudbiyay waa ninkan ayaa dabagal ku sameynayaan balse ninkii wuxuu isleeyahay carar balse ninkii gacanta ay kusoo dhigayaan oo way soo qabanayaan markaana labadoodii way soo guulaysan soo laabanayaan taliyahoodii ayay dib ugu laabanayaan markaana ninkii ayaa la baarayaa markaana way soo laabteen wax ku soo laabteen magaalada kalaabiyada mid ka mid a ayay joogaan markaan labadoodii weliba markaan halkan weliba waxay ka raadinayaan nimankii ee raadraacoodii taliyahoodana amar ayuu ku sinaya arrintaas sidoo kale carruurtii baambayda waa kuwana tuuladan ayaa ka taliya markaana khamaar iyo waxyaalo fara badan ayaa ciyaarayaan balse ninka loo magacaabo yorga ilaa hadda asagoo ma u saharin meeshaan ayay howlgal ka hayaan markaan waxay gaadgaad ku hayaan ninkan basixirka weliba ninkan waa nin wuxuu ka mid yahay nimankii hore oo mataqaana ay kusoo arkeen sawiradii markaana taarget koowaad ayuu noqonayaa halkaana nimankii tuugada ah shir ayay ku qabsanayaan halkaana ayagii way ka gadhow yihiin ilaa hadda kama foga markaan wax iskula xiriirayaan bahalada codka kala gudbay ay iskula xiriirayaan nimanka shirkadu ayay dhegeysanayaan nimankuna meeshan kalaabka ayay ku sugan yihiin saddexdooda mid ka mid ah
wuxuu dhagta ugu jiraa bahal maqalo codka gudbiye si ay iskula xiriiraan. Nimankii dagaal ayay bilaabayaan, balse nimankiina meesha ayay joogaan. Mid ka mid ayaa biskoolad lugta uga qabanaya si uusan isku dhaqaajinin, balse meesha dagaal ayaa ka bilaabanaya. Markaana asxaabtii kalena gaari ay saaran yihiin, ilaa hadda wax meesha ka socda ma oga, meesha ayay rabaan inay soo aadaan. Kadib waxay ka war helayaan in meesha la soo weeraray, balse ninkii taagadkoodii ahaa oo ka baxsanaya, balse mid kale ay gacanta ku dhigayaan. Kadibna way soo qaadayaan, kadibna ninkii waxaa la sameeyay in la daaweeyo, balse nimanka tuugada ah waxay ka war helayaan in meesha la soo weeraray, balse arintana way ka xanaaqayaan. Sidoo kale markan waxaa rabaa in lagu soo weeraro tuulada ay degan yihiin, balse nimankan waa nimanka tuugada ah oo 6 ah oo dhameeyay dhamaantood. Wax walbana waa u sheegaya in walba inta ay yihiin ee meesha ay joogaan. Arintan waxa waa arinta u fududeyn karta in meesha ay joogaan loogu tago, balse markaas ciidankii magaalada way soo baxayaan si ay nimankaas gacanta ugu soo dhigaan. Dhamaantood waxba la harimaan, balse mid ka mid ah ayaa isla baxso. Carruur yar ayuu muddo ku qabanaya, haddii kale iga leexday ayuu leeyahay, balse asagoo dil raba ayaa wax gaalka mar Yorga kadibna xabad ayuu ku dhufanaya. Cunuga yarka wuxuu wadaa qarax, wuxuu rabaa inuu magaalada meel kamid ah ku qarxiyo. Kadib wuxuu soo galayaa meel la buuxo, kadib wuxuu tuurayaa shaakadii qarax uu ku jiray, balse meeshii wax ka dhalanaya qarax weyn ayaa ka dhacaya. Kadib meesha dadkii ayaa ku baaba'aya, balse markaan isbitaalkii ayaa mid ka mid ah soo seexinaya. Markaan Yorga iyo ninka lagu magacaabo mataqaana Tambi waliba markaas sawir ay galiyaan. Kadib ciidamadii dhamaantood way isdiyaar garanayaan, dhamaantood markaan waxay soo aadayaan kayntii weynaad ee nimanka tuugada ay dhamnaayeen. Markaan hadafkooda koowaad wuxuu yahay in dhamaantood ay soo qabtaan. Kadib meesha ay soo weerarayaan, waliba waxyaalo fara badan qalab casri ay meesha galiyaan si wax walba meesha ugu ogaadaan. Kadib kaynta wax ka qabanaya isku weer, balse gangasare kale ayaa meesha jooga. Ciidankana ilaa hadda wax war kama hayaan. Ciidankan kale ay isla inta gumaadeen, kadibna ninka gangasarka gacanta ku dhiga meesha marka dagaalka ay ku bilaabaan, balse tuugadii waxay sameeyeen in iska caabiyaan nimankan. Kadib booliskii wax soo gaaray jab xoogan, waxay dalbanayaan gurmad, balse diyaarad ayaa imaanaysa. Helicopterka ciidamadii dhaawaca ah ay ku gurayaan. Kadib intii ku mashquulsanayeen ninkii gangasarka waa cararaya, waxay ka daba dirayaan soo wadada ugu hubiyo. Kadib meesha waxa ka dhacaya qarax xoogan, balse eyga ayaa wax walba ku hubinaya. Kadib markii eygii ay cirsaan ninkii kale, nimankii gangasarada ahaa oo meesha ku jiray marka ku sugayay ayaa ninkii kale Tom gaalka soo weeraraya, balse marka dhaawac ay u geysanayaan, balse marka waa uu ka cararaya si uu ninka kale wada tago. Ninka waa cararwa doonaya ku dhacaya, balse doontii ma uga harayaan, ayagoo doonta ay ka doofulayaan si ay ninka gacanta ugu dhigaan. Yorga doontiisa ayaa markaa dhaawac soo gaaraya, balse waxa maqlaya Tom, balse Tom markaan doontiisa intuu qaato ayuu ku ordayaa. Markaana doonta ayuu ka dhacayaa, balse ninkii targetkooda ahaa ayaa doonta saaray, doontina wuu gubartaa. Kadib Tom ayaa soo qaadaya, balse doonta intuu ka daba tago ayuu doonta soo badbaadinayaan. Kadibna derbiga ayay ka celinayaan, balse nimanka tuugada ilaa hadda kama harin, doontooda xabad ayay ku wadaan. Markaana waxay dalbanayaan inay gurmad u yimaado, kadibna helicopter loo soo diro, balse helicopterkii ayaa soo gaaraysa. Markaan waxay rabaan in ninkan targetka ah kor ugu qaadaan, kadibna xarig ayaa lagu xirayaa, balse helicopterka ayaa kor loo kacaysa. Tomna saaxiibkiisana waa ka dab xirayaa si ninka tuugada u dilin. Markaasna way ka guuleysteen, diyaaradiina waxay ka degaysaa magaaladii. Markaan ninka tuuga waxaa la keenay magaaladii, saasna xabsi ay la gelinayaan. Markaana waa loo hambaleynayaa ninka la magacaabo Tom iyo Yarli. Markaana gurban ay gaareen. Asxaabay filimkeena halkan ay ku eegay. fadlan intaan bixin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like sartin, sidoo kale asxaabtina kale u sheeg garisin wixii ra'yiga mataqaana ama fikradaha noo siina inagula soo wada qaybta commentiga. Muuqaalkan iyo muuqaalka noo balna